الرحيم halkan maanta shirkan jiraayid waxaan u qabanay inaan kaga hadalno aniga oo magacaygu yahay Ceelaabe Maxamed Fani oo ah dadweynaha ku dhaqan degmada Dila iyo Baki waxa aan shirkan jiraayid maanta u qabanay inaan kaga hadalno qodista macdanta baaralka ee ay wasaaradda macdanta iyo shirkadda ERC ay galeen waxaan xukuumadda Soomaaliland u sheegaynaa in ay hawshaasi tahay hawl aan sharci ahayn wax allaaliya wax golaha baarlamaanka oo ay soo martay aanay jirin sidaas awgeed anagu hadii aanu dadka deegaanka nahay qodista macdantaasi waan cambaaraynaynaa waxaan u cambaaraynaynaa iyadoo degmo ahaan iyo dad ahaan iyo deegaan ahaan midna aanan ogeyn macdantaasi oo qadarkeedu yahay 500 oo kun oo tan waxaan leenahay waxaasi waa wax xaraana xukuumadda Soomaaliland ha ka noqoto dib uga joogsato waxa kale oo aan ognahay shirkadda ERC adresskayga oo dhawaan haynaa waxa aan u gudbinaynaa anagu caalamka iyo adduunweynaha ayaabaan ka dacweynaynaa waxaan leenahay waxaasi wax heshiis sharci ah maaha dadkuna xuquuqdoodii ma hayaan lama tashan hatta tale lama weydiin waxa way warshada sibirka ee berbera waan ognahay halka ay ku taalo maxay u dhici weyday in ay u shaqayso waxa way waa wax khalada waxaan leenahay barnaamijkaasi xukuumaddu ha ka noqoto si wanaagsan ha uga noqoto hadii ay ka noqon weydana wixii ka yimaada iyada mas'uuliyadeeda iska leh ifaaqdu waa su'aal wanaagsan waxa way suldaanka xaaladiisu waxa way waa wax tabasho arinka oo wax tabasho taagana in yacni la boonbooniyo oo technical iyo magaraysa ciidan iyo iyada oo waliba dadkii ay suldaanka ehelka ahaayeen doortay ay ku maqnaayeen in ciidamada la duldhiga waxaan leenahay waa mid xaaraana waana mid khalada xukuumaddu way ku degdegtay waxaan leenahay xukuumaddu wax allaali iyo wixii yimaada iyada ka mas'uula hal in lagu dayo ayaa wanaagsan baan leenahay waxyaalaha nooca u socda marka xukuumaddu si khalada oo degdega ayay ugu la kacday inay ciidan dulbeysa hal inay ku daydahayd الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أليقو مقعيقو يهي سلطان عبد الرحمن حسين بله دقنا دقمة بكي يدلا وعن قاضي يا شركة معدن قديسته ومدة لبس سنة جوجتي بورها سيمودي شركة داسي ERC شركة داسي وشركة جاينا إلى شرعي تاي أو أدونك كشقي سنة وركما هاينو هشيسك Soomaaliland la gashay waa heshiis qaldan waa heshiis aan xalaal ahayn waa heshiis aan golaha baarlamaanku soo xalaaleyn aan soo marin waa shirkad standardka ay ku shaqeynayso iyo qalabka ay ku shaqeynayso iyo kiimikooyinka waxa weey xoolihii way bilaabeen dhimashadoodii isbedel deegaan baa jira shirkadaasi heshiiska iyo qodista macdanta beeralka qiyaasteeduna lagu qiyaasay 500 oo kun oo tan wax alla wax gobolka iyo degmada Baki iyo dadweynaheegu ay ka ogyihiin aanay jirin shirkadaasi waxaan u digaynaa inay degdeg uga guurto buurahaasi dawladda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa waxa weey gola sharci dejina oo waxa weey la soo mariyo heshiisyada caalamiga ah ayaynu leenahay waxa weey koox wasiiraaca ansixisay sida wasiirku sheegayo safarkan uu ku tagay Siimoodi waxaan u aragnaa Bob ay wado xukuumadda madaxweyne Silaanyo oo waxa weey wixii dhulka dushiisa yaalay markay dhamaysay wixii hoosta kaga jireen inay ku sahay qaadato ay doonayso taana yeerimeyn waxa weey iskuulada yadii baabaasan dhaqaatiir looma samayn wax shirkadaasi heshiiska la galay ama deegaanka dib ugu soo noqonaya oo aanu ognahayna ma jirto marka shirkadaasi qurba joogtayadana waxaan leenahay meelaha laga dacwiyo joogta ama aqoonta u leh ama sharciyahanka waxa weey sharciyada yaqaan waa inay dacweeyaan shirkadda adreskeyga annaga hayna marka waa inay annaguna waan dacweynaynaa suldaanka waan maqalay suldaan waxa weey waa suldaan beelaha gobolka awdal kamida wastaan la doortay wuu jiraa xukuumadda Soomaaliland ee inta 20 gaari oo ciidana iyo taangiyo iyo beebeeyo dulgeysay maatida joogta quljeed iyo boon waxa weey argagax laga qaaday wax cadow halka ku jiraana aanay jirin